قلاب كده عسوبيد بصاها القعدة قلاب كده أنا كوسي فوقاني وحير نوقت تعوضه بس قال وحير لقتها تاوكنا أنا كود وحن سكين خبردار نسيب وناك وحين كان dadkeena anaku qolooyinkii daafaca jaamacadana la geeyay waa jaamacad daafaca صح marka ciidamada aan ka tirsanin waa daafaca ardadii la soo celiyo dhan saraakiil baan nahay marka oo waa 3 sanaan marayna moogtay tababarkii ay waxay noo tixgeliyeen tababarkii u horeeyay marka waxayna keeneen guntada liraa bangala bangala waa guutada ka soo horjeeda meesha jaalasiyaad hadda la yiraahdo isaas uga soo horjeeda aniga iyo nin kale waxaan oo tacliinta ku fiicnayn waxaan joognay urur dadku badankiisa aniga ninkaas maahe inta kale waxay joogeen guutada nafteeda saldhigeeda waxay joogeen maaragtay maxaa la dhihi jiray xarunta guutaday joogeen aniga iyo nin kale waxaan u bilownay duruus electronic ah oo farsamada ku saabsan dad ay ruushka soo diyaareen 6 bilood oo buufsiisa siiyeen oo saraakiil ah oo farsamada ah in farsamada si qoto dheer u fahmaan marka urur daynil ku yaal bayna geeyeen oo meeshii waana ku xereeyay aniga ninkaas ba saraakiil xidiglayaal ah baan macallimiin u nahay oo asaaska farsamada asaaska waxay ku asaasan tahay farsamada nafteedii ma asaaskeedaan barayna taasaan marka ana ku joogno aroortii aniga soo anoo intaan buu akhrin waqti dambe ku gaaray baan waxaan maqlay markay tahay 9 saac habeenimo 3 o'clock in the morning 9 saac habeenimo markay tahay baan waxaan dad 2 qof oo hadlaaya maaragtay irideeda banaankeeda ku hadlaaya waxaan dareemay inuu yahay muxuu ahaa taliyaha ururka oo nin kabtan oo ciid la dhihi jiray ah iyo qaaray nin asagan ruushka nagala yimid oo ku xigeenkiisa ah markaasaan waxaan leeyahay maxay saacadan hadal hoos ugu hadlayaan aroortii annaka waxba ma maqal wax dhacay ma jiraan quraacdan iska aadnay waxaan isleenahay kalaasidaad geli doontaan saannaka intaan quraacna ku jirnaa markaan quraac ka soconay waxaan aragnay dad weerar nagu soo haya oo waxba xabada ma ridayaan laakiin geedaha door cidlay ku taallaa ururka daynil hadda tabcan meelahaas dhan waa degay laakiin meel cidlahay ku taallay oo geeda waxay maaragtay u badan geeda qurac iyo waxaas waa meel kayna oo geeda leh marka geedaha iyo dhirtaas ay soo hoosgalayaan kaanama inay rabaan inay soo weeraraan adiga markay arkeen in meesha cidna xabad ku riday